magaalada Xarshin oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya deegaano hoos yimaada waxaa ku dhintay 4 qof 6 qof oo kalena waxaa soo gaaray dhaawac khadka telefoonka ayaa waxa aanu kula xidhiidhnay Maxamed Ciise Cali oo isagu madaxa masiibooyinka ee magaaladaasi Xarshin iyo waliba mid kale oo kamid ah odayaasha deegaankaasi Faarax Liibaan oo labadooduba khadka telefoonka si toos ah waqtigan ay ugu jiraan aynu ku horeyno محمد عيسى علي مدح مارينتا iyo masiibooyinka ee magaalada Xarshin maxamed sidii arimahaasi u dhaceen bal dadka halkaasi ku dhintay iyo dhaawaca iyo sida ay xaaladdu tahay bulsha TV khadka telefoonka faahfaahin hadda bal naga sii waa si wanaagsan horta anigu waxaan ahay madaxa maareynta khatarta masiibooyinka degmada Xarshin oo dhan maaha magaalada taas arintani waxay dhacday xilli habeenimo oo saxda dhexe wixii labada habeenimo ka dambeeyay dhacday waxay ka dhacday santarka Faarax Liibaan qabalay ka tirsan oo la yiraahdo qabalay ugu ka sii tirsan santarkaasi uu xukumo oo la yiraahdo xijin ayo nin markaa maskaxda wuxuga ka xanuunsanaya ayaa reerkii markii uu galay laba qof oo waaweyn oo dadkii caruurta dhalay uu dilay ma garan ayo laba yar oo waxa uu ku dilayaan waa toori iyo faash laba yar oo kuwii ay dhaleen way dhinteen oo iyadana waxa u dhinteen nabaradii uu ku dhuftay hayo shan kale oo caruurtii reerka joogtay oo hablayeen manala oo 4 hablood iyo wiila shantaasina dhaawac bay jiraan wax dhaawacina loo qaaday xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga loo qaaday hayo hawshaas xilligaas ay dhacday qof kale oo waxa jira isna uu reer kale ku sii dhaawacay halkuu ku sii dhaawacay wuxuu ku sii dhaawacay reerka reer u dhow hayo dadka deegaankaas uu sii dhaawacay miya dadka deegaankaas waa nin weyn oo isna roon oo reer kale mas'uul ka ahaa oo la taara hayo ayuu isna dhaawacay waan gartay marka dhaawacaas waa 6 qof iyo 4 dhimatay weyn 4 dhimasho iyo 6 qof oo dhaawaca iyo 5 qof haye waa dhaawac inta weyn ninkii arintaasi geystay gacanta ma lagu soo dhigay ninkii arintaasi geystay gacanta lagu dhigay hay'adaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gacanta ku hayay iyo maamulkii degmada Xarshin marka tirada guud inta qof ee dhimasho iyo dhaawac maxay dhimashada waxa tir waa 4 qof dhaawac 5 qofna 5 qofna dhaawac ninka kale ee reerka sii maray waa 6 dhaawac ku yihiin dhaawac waa 6 iyo dhimashadana waa 4 maxamed ciise shombe maxaad kala socotay arintaasi dhacdadaasi ay ku dhinteen Allah u naxariistee 4 qof 5 qof ee kalena ay ku dhaawacmeen horta halkan dhaawacmay waa 5 waa 6 weeyaan inta dhaawacantay haye dhimashadana waa 4 haye hal qoysna way ka wada tirsan intuu masku wada qoys ba sagaal ba isku qoysa reerka uu wada laayay waxba ka tagin waa sagaalka haye ninka kalena meel kale ku sii maray oo tar reer kale deegaanka uu ku sii maray reer kale deegaanka uu ku sii maray haye marka ninkani muddo 5 sano ah ayuu marna waalan jiray oo cilaaska la geyn jiray marna uu bogsan jiray waa gartay marka walaalkii baa dhintay maalin dhaweyd oo dhintay oo ka weynaa baa dhintay maalintii uu dhintay buu deedna waashay lug buu ku galay Hargeysa haye haddana wuu ka soo noqday haye cilaaj baa la geeyo deedna cilaajkiina uu ka baxsaday waa gartay sidaas ku yimid haddana halka Faarax Liibaan isagu markaa dadka deegaankaas ka tirsanaa ninkan wax leynaya waa dadka deegaanka weeyaan waa beertiisu waa Faarax Liibaan qabalaha la dhaaf Faarax Liibaan weeyaan halkaas uu degan yahay degmada Xarshin reerkan kale waa ku dhawaayay markaa dadkan deegaankan Faarax Liibaan waa jar hal kilomitir bay isu jireen 1 kilomitir oo kaliya maladii soo gurmaday oo maladii yimid maamulkii iyo mas'uuliyiintii degmadaasi Xarshimeed maamulka degmada Xarshimeed iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida dhamaantood way soo gurmadeen way yimaadeen gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo
shaqaalihii ciidanka new booliska iyo maamulkii kale degmada dhamaantood way fadhiyaan iyo taliyii booliska degmada iyo maamulkii iyo baarihi dhamaantood aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cali oo ah madaxa maareynta dhinaca masiibooyinka ee Qarshin iyo Shoomboosna odayaasha deegaankaasi ka tirsan oo ay bulsho TV si toos ah khadka telefoon noogu waramayeen oo ay wax nooga weydiinay arrinta masiibada ah ee Allah u naxariistay 4 qofna ay ku dhinteen 6 qof ee kalena uu ku dhaawacmay nin ay maskaxda wax uga dhiman yihiin waad mahadsantiin adiga mudan bulsho TV